dadka iyo saameyntooda. waa qasab in dadka noloshaada ku hareeraysan ay dhinac u bataan wanaag iyo xumaan marka laga hadlayo, balse taas ma ahan midda micnaha badan suubinaysa. waxa micnaha suubinaya ayaa ah saamaynta ay kugu yeeshaan iyo sida ay u beddelaan dadkaas noloshaada. laga yaabee in dadka qaarkii ay ku doodaan in qofna uusan qof beddelin, taasise ma ahan dhabta jirta ee waa mid ku salaysan mala meel loo cuskadaa aysan jirin. waxaa hubaala in dadka aad mar walba la dhaqanto ama aad wax la wadaagto in wax badan aad kaga dayato nolol ahaan dhinacay doonto ha noqotee, waana intaas waxa laga hadlayo. sidaa daraaddeed qiimaha daran ee ay leeyihiin dadka wanaagsan ee kugu hareeraysan ma ahan waxa aad ka heshid xaggooda ama aad kaga dayato. muhiimadda ayaa waxay tahay sida wanaagsan ama xun ee ay noloshaada isku beddesho saamaynta ay kugu yeesheen darteed. dulqaadka. adkaysiga iyo dulqaadka waa macallinka ina bara wax badan oo ka mida qiimaha nolosheenna. ma ahan oo keliya in adiga oo keliya aad wax ka baranayso, ee waa in dadka qaarkiina aad tusaale ugu noqon karto dulqaadka iyo adkaysiga. nolosha waa mid taxano ah oo la isaga daydo, qofba qof ayaa u ah bidhaan uu isleeyahay gaar, taasoo micnaheedu tahay in kulligeen aannu wada nahay tusaalaha dad kale ama dad kale ay inoo yihiin tusaale aan doonayno inaan gaarno. haddaba dulqaadkaaga maanta waa faa'iidadaada berito. hubaal in dulqaadka qof kale uusan marnaba khasaarin. dulqaadku wuxuu la mid yahay cashir aad maanta baratay, kaas oo faa'iido guud ku leh noloshaada oo dhan. haddaba samirka iyo dulqaadka in la badsho waa muhiim. cadceedda iyo duufaanta. xasuusnow in qof walba uu ku doonayo marka aad ladan tahay caafimaad ahaanna aad joogto, balse marka duufaanta dhibaatada kugu kacdo oo boorka ku qariyo, waa markaas marka uu qof walba wejiga ka dadbanayo araggaaga. qofka markaas ku soo aada iskuna daya inuu kaa tiro boorka ama kaa dhaqo waa qofka la doonayo inaad xajisato. dadku waa kuwa ay keento dabaysha macaan dhammaantood inta xun iyo inta san, balse marka ay duufaantu kacdo waxaa la kaco oo duufaantaas dhinac ka raaca intii xumeed ee aan adkaysiga lahayn amaba aysan daacad ka ahayn la jidhka ay kula jireen. haddaba dabaysha kacdaa sabab ay u kacday ayaa jirta. ma ahan inay adiga keliya dhibaato kuu tahay boorna ay kugu qarisay, ee waxay kaala kacday kuwa ku dul saarnaa ee aad u moodday inay qaali kugu ahaayeen. haddaba cadceedda quruxda badan waxay la timaadaa dad wada qurux badan weji ahaan, balse qalbi ahaan aan la aqoon karin, halka duufaantu ama dabaysha kacdo ay la kacdo kuwa qalbiga ka foosha xun, waxayna reebtaa kuwa qalbiga qurxoon. faanka. in lagu faansho amaad faanto waad jeceshahay, inkastoo in la faano aan la wada jeclayn, balse laga wada siman yahay in la wada jecel yahay inna la wada faansho. waxaa jirta su'aal aan weli la isweydiin, miisaan ahaanna la muujin, taasoo ah in faanku uu wax ka beddeli karo dhabta aad ku jirtid ama xaqiiqada taagan ee aad tahay. isweyddiintaas aniga ayaa isweyddiiyey, waxaana helay in wax macnaa uusan soo siyaadin faanka, bal la dhihi karo wuxuu sababaa in qofku been ama dhalanteed aan dhab ahayn uu ku noolaado, taas oo seejisa wax badan oo uu qabsan lahaa iyo wax badan oo uu noqon lahaa. in la faano soomaalidu waxay ka tidhi in qofku isnuugay. qofku hadduu isnuugana isaga ayaa isjaqay mooyee cid uu wax u dhibay ama wax ka dhibay ma jirto. si kale haddaan u dhigo sharaxaaddaas waa inaad isla adigii tahay oo faanku waxba kuu kordhinayn shakhsiyaddaada iyo xaaladda aad markaa ku sugan tahay. jacaylka iyo dhaawaca. jacaylka aad qof jeclaatid marnaba dhaawac kuuma noqon karo, ee waa kuu farxad jawigaaga nolosha wax ka beddesha. balse waxaa la yaab leh in qofku marka uu waayo ama uu ka tago qofku uu jeclaa inuu meel la seexdo ama la walbahaaro dhaawac qalbi oo saamayntiisa yeelan kara. waase iska dabeecadaha aadanaha in marka ay wax doonayaan ay muusoodaan, marka ay waayaanna ay sawirtaan sawiro kale, kuwaas oo aan fariin qurxanayn qalbiga u dira, ugu dambayntana ay ka muuqato jidhkooda iyo muuqaalkooda. haddaba su'aashu waxay tahay inaad wax jeclaato awood waad u yeelatay. wax walba oo aad kala kulanto ama aad ku hergelin lahayd jiritaanka farxadda jacaylkana waad u diyaarsanayd. waa maxay sababta dhaawac kugu abuurta oo adkaysamadii aad u haysay jacaylka aad ugu hayn weysay inaad ugu samirto dhibaatada aad la kulantay ee kaa soo gaartay xagga lamaanaha kula waday jacaylka? maanta beri maahan. xaaladaha dunida waa kuwo isbedbeddel badan. marnaba kuma jiraysid xaaladda aad maanta ku jirtid, waa hubaaltaas.
maxaa yeelay wakhtiga ayaaba kuu oggolaanayn ama dabeecadda nolosha ayaaba sidaas loo abuurin. waa xilli kumeel gaar ah inta aad faraxsanaan kartid ama murugaysnaan kartid. ma ahan inaad nolosha u sawirataa in sida aad jeceshahay ay mar walba ahaanayso. xaqiiqada nolosha maba ahan sidaas. qofka sidaas ku fakarayana waa qof aan fahmin maanta ayaanka ay tahay ma ahaanayso berrito, oo sida ay maalmuhu isku dhaafaan ayay xaaladuhu isku dhaafi doonaan. waa samaangaabnida aadanaha iyo maskaxdooda ayaa mar walba sawirato waxa ay ku dhex jirto, taas oo sababto in qofku hadduu badraan yahayna uu sii lumo, halka dadka qaar ay ka qaadaan nimcada caqli sababa inay dib u soo laabtaan, ogaadaanna in la imtixaanayo. kan murugada ku jira ee xaalku ku cuslaaday ee meel walba ay ka soo xirantay xaalad aad u adag oo markaa uu ku dooran lahaa ka haajirid uu nolosha ka haajiro, waxaa muhiim u ah kaas inuu ogaado in arrinkiisa aan la moogayn ee la eegayo heerka uu gaarsiisan yahay samirkiisa. dadka mar walba oo wax la tusaalaynayo waxaa wanaagsan in tusaale loogu soo qaato wax ay arkeen ama ay fahmi karaan. halka uu warku u dhacay ayaa ah in marka ay arrintu kugu cuslaato duco badan oo aad gentayna aqbalaaddeeda sida aad rabto aadan u arkin, waa inaad xasuusnaataa markaa in lagu imtixaanayo oo Rabbi kor kaa eegayo bal heerka aad joogto. macallinka imtixaanka qaadaya mar walba waa mid dul taagan ardayda oo eegaya oo keliya, waxna aan ku odhanayn. aamusnaantiisa iyo daymadiisa ay badan yihiin. haddaba samirka badi xaaladda culus waa sida maanta ay u timid oo aysan berri maanta u ahaan doonin. dhiro oo jeeso dhaqaaq marna ha joogsan, dhabahan qaado dhowaan guushaad bagaari. dhiro oo jeeso dhaqaaq marna ha joogsan, dhabahan qaado dhowaan guushaad bagaari. kuwa dhooban jidka ee dib ku dhigaaya ha dhegaysan qowlka iyo waxay dhahayaan. kuwa dhooban jidka ee dib ku dhigaaya ha dhegaysan qowlka iyo waxay dhahayaan. dhiro oo jeeso dhaqaaq marna ha joogsan, dhabahan qaado dhowaan guushaad bagaari. dhiro oo jeeso dhaqaaq marna ha joogsan, dhabahan qaado dhowaan guushaad bagaari. dhib badan baad mari intaadan dheefta gaarin, dhabaraadaygoo dhaqaaq weligaa ha quusan. dhib badan baad mari intaadan dheefta gaarin, dhabaraadaygoo dhaqaaq weligaa ha quusan. dhiro oo jeeso dhaqaaq marna ha joogsan, dhabahan qaado dhowaan guushaad bagaari. dhiro oo jeeso dhaqaaq marna ha joogsan, dhabahan qaado dhowaan guushaad bagaari. horumar tigso horay u dhaqaaq, hanqal tagna horaa lagu baasay. halkaad joogta ha sii tagnaanin, horumar guule hubaal wad gaari. horumar tigso horay u dhaqaaq, hanqal tagna horaa lagu baasay. halkaad joogta ha sii tagnaanin, horumar guule hubaal wad gaari. higsi iyo hore baa loo huleelay, hariya habeenna hakad lama joogsan. haaquusan hana yeelin hikaadda, kuwa hooseeya hormuudu yihiin. kuwa hooseeya hormuudu yihiin. horumar tigso horay u dhaqaaq, hanqal tagna horaa lagu baasay. halkaad joogta ha sii tagnaani, horumar guule hubaal wad gaari. hansare howl badan higsi dadaale, hakadli ihami wacan holis daba jooga. heerkaad rabto heli maysid horaanba, ee howlya dhibba ka soo horeeya. howlya dhibba ka soo horeeya. horumar tigso horay u dhaqaaq, hanqal tagna horaa lagu baasay. halkaad joogta ha sii tagnaanin, horumar guule hubaal wad gaari. horumar guule hubaal wad gaari.